Croatia waxay xorriyadda qaadatay 25 Juun sanadkii 1991. caasimada Croatia waa Zagreb. Waddanka looga hadlana waa Croatian. lacagta waddanka waa Kuwan ku fadhiya waddanka waxaa lagu qiyaasaa 56,594 kiiloomitir oo iskuweer ah. Qaybta uu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 31,067 kiilo. Dadka ku nool Croatia waxaa lagu qiyaasaa 4.4 milyan oo qofood. Waxaana xuduud la leeyahay Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia iyo Montenegro. madaxweynaha dalkan waa haweeney lagu magacaabo Kolinda Grabar-Kitarović taasoo qabatay 19 February sanadka 2005 waxayna xilka hayn doontaa muddo 5 sano ah. waxay ka tirsanaa jirtay waddankii weynaa ee Yugoslavia oo wadamo badan ay ka go'een sida Croatia, Bosnia, Serbia, Montenegro iyo kuwa kale. siyaasadeedka waddanka waa dimuqraadi oo parliamentarian ah. waxaa ku biiray qaramada midoobay waddankan 1992. NATO waxa uu ka mid noqday sanadkii 2009. Yurubna waxa uu ku biiray sanadkii 2013. ugu dambeyntii caalanka waddanka Croatia waxa uu ka kooban yahay midabka guduudka oo qaybta kore iyo qaybta dhexe oo cadaan ah iyo qaybta hoose oo buluug ah. waxaana ku dhex yaala calaamad 25 guduud iyo cadaan. sidoo kale waxaa kor saaran 5 calaamadood oo ka dhigan inay Croatia ka kooban tahay ilaa iyo 5 gobol.